رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية مدن حسن علي خيره iyo wasiirada kalluumaysiga ee dowlad goboleedyada oo kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa ka wada hadlay horumarinta kalluumaysiga dalka. Ra'iisul Wasaaraha ayaa wasiirada kalluumaysiga dowlad goboleedyada ku booriyay inay si laba jibaaraan wada shaqaynta kala dhaxaysa xukuumadda Soomaaliya si looga wada faa'iideysto kalluumaysiga oo kamid ah kheyraadka dalka uu leeyahay. sidoo kale kulanka uu ra'iisul wasaare Kheyre la qaatay wasaaradaha kalluumaysiga maamul goboleedyada ayaa looga hadlay shatiyo kalluumaysi oo ay dowladda Soomaaliya siisay shirkado laga leeyahay wadanka Shiinaha. Wasiirka kalluumaysiga iyo kheyraadka badda Cabdullaahi Bidhaan Warsame ayaa kulanka kadib warbaahinta la hadlay waxaana uu faahfaahiyay waxyaabihii kulanka diiradda lagu saaray. waxaa maanta xafiiskayga igu yimi ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Kheyre halkaas oo uu nagu soo booqday shir nooga socday aniga wasiirka kalluumaysiga dowladda federaalka iyo wasiirada xubnaha ka ah dowladda federaalka ee dowlad goboleedyada wasiiradoodii kalluumaysiga oo Puntland mooyaane intii kale halka ay ku dhanaayeen Puntland dhismaha dowladda cusub iyo arrimahaas ay u maqnayd marka waxa aanu ka hadlaynay wada shaqaynteedii iyo arrimihii ra'iisul wasaaruhu wuxuu nagu dardargeliyay inaan sii xoojino wada shaqaynta arrimo aan rabnay inaan horumar ku sameeyno oo kalluumaysiga ku saabsan oo deegaanada dowlad goboleedyada ee xeebaha ku yaala baan isugu nimay shirkaygaas muddo noo socday meel fiican buu noo marayaa ra'iisul wasaaruhuna waa nagu bogaadiyay hawsha aan wadno iyo ma garanaysaa isu imaatinkayaga aan wada joognay aad buu noogu mahad celiyay wuxuuna nagu dardargeliyay wada shaqayn joogta inaan yeelano iyo inaan warbixino soo gudbino wasaaradda kalluumaysiga dowladda federaalka warbixino ay u soo gudbiso xafiiska ra'iisul wasaaraha joogta ah oo laga warbixinayo wada shaqayntana dhex marta anaga iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka marka hawshaas si fiican bay u socotaa waxaan uga warbixinay arrimihii shirarkada ku saabsanaayeen dhammaantood oo dhowr maalmood socday ilaa wiigii hore ilaa haddeer arrimahaas oo dhan waxay hayeen arrimo aan meel fiican ka gaarnay qaarkoodna waa noo dhiman yihiin wada shaqayntana waa noo soconaysaa. kulankan ayaa ku soo aadaya xilli dowladda Soomaaliya ay bixisay shatiyo muran badan dhaliyay oo ay qaateen shirkado laga leeyahay wadanka Shiinaha. Shaafici Cusmaan Cali, codka bariga Afrika, magaalada Muqdisho.